جيلكاجي وحنا هاي لقى شري شحكا ميدانه ويوان كجيلا Stances, an 86th minute headed winner in Djibouti in the opening leg. Anwar Sid Ali Shakunda in 2022. Ladies and gentlemen, let us all rise for the national anthem of Somalia. Here comes the Somalian national anthem. Uprising. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan ma sha Allah tabaaraka Allah. waxaan si gaar ah u salaamayaa asxaabteeda iyo khaaska ah ee channelka aan friendiga ku nahay saaxiibadeeda qiimaha ay qaayaan mudan. tan saddexaad waxaan inta ka salaamayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee niyadda u dhisan ma sha Allah tabaaraka Allah. isku dayay inay soo celiyaan sumcadda dadnimada iyo dawladnimada iyo ciyaaraha caalamka inay ka qayb galaan ma sha Allah ma sha Allah boqol like aan sii dhalinyarada ma sha Allah tabaarakallah. waxaan ilaahay ka baryaynaa waxa ani hatta maanta farxiye aan fiirsaday ciyaar ay dheelaysa ciyaaraha Soomaali iyo Zimbabwe wallahi oo bilaa xaad intay istaagtay ilin iso istaagtay markay ilmaha calanka soo qaateen dhalinyarada markii calankii u heeseen yaa subxaana casaa wajalla meeqasana calan wax saas oo heesaa weligeena ma arkin. waxa aad iyo aad aan ugu farxay maanta heerka aan gaarsiisanahay ummadda Soomaaliyeed oo dib u soo laabatay ma sha Allah tabaaraka Allah. waa wax lagu farxo waa wax niyadda noo dhiso waa wax caalamka buugeeni horo. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta aad ugu faraxsanahay farxad aan la soo koobi karin ani iyo familkeyga ilmeyga xataa wallahi aan isla qaylin ma sha Allah tabaaraka Allah. Soomaaliya oo dib ugu soo laabatay adduunka nolosheeni hadda obniyu wax mugdi ka soo baxaa soo ifbaxay camal aan noqon ma sha Allah tabaaraka Allah. waa ku mahadsan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ilaahay cadow Allah ka qabto meel walba joogaan ilaahay kor ha ka dhigo magacooda. waagi hore waxa la dhahay waxa Soomaalidu waxa la dhigi jiray la dhahay geeska Afrika la dhigi jiray anaka geeska Afrika bariim libaaxyada Afrika waxay ahayd Soomaaliya Allah ma sha Allah ilaa haddana waa nahay xoogaa dhibki iyo qabiileysiga iyo dagaalada iyo ummadda indhaha duubto ilmaha bageen iyo meelay dhalinyarada ku ciyaaraan oo badda deetaan loo dawtagay dib meel bay joogan lagu baabiinaa ilmaha niyadda ka dili mugdigaan galna 30 sano iyo kala koos waa 30 sano iyo wax la jiro waa inta mugdi ku jiro. maanta waxa ay cadaad inaa xoogaa soo ifbixeen xoogaa qorax yar ee noo ifeyso maadaama aan baxne oo dhalinyaro yeelane oo finaan maanta ku qoran dalka Soomaaliya Zimbabwe iyo Soomaali alaga badiyo rag horta laba qof de isdagaasho mid areenay taas caadi waay laakiin buuga adduunka aan ka tirmanay 30 sano kadib dib ugu soo laabay intaas maanta ku faraxsanahay la ooyo wallahi billahi ma sha Allah tabaaraka Allah. haddana libaaxyada Soomaali geeska Afrika weligeeda ay jirtay haddana waxa ii muuqato koobka maanta aan soo qaadkii ilmiye mujeedino lugayna ku qaadayna oo Soomaal koobka haddii jaanis ay helaan oo macnaa wadankooda u qabo hadda fiir wiilashan baahaya ka muuqato deganaashada ku yar macnaa kubad ciyaar oo orod lagu soo baro waa boobsiis waa ma degana iga dhan
wallahi markay caalamka soo qaadeen ee ku heeseen waxay ku heeseen heeska waxay ku heeseen caalamka markay soo qabsadeen waxay ku heeseen holowaa calankeed duwacayno inaga kaynuwa cirko kale aan caadba lahayn ilaahu rabbiyo raxmaano intaan inka badan ilaahu adaana gaarsii kartid dagaal iyo qabiil ilaahu meeshaas noogu reeb yaa rabbi yaa raxmaan yaa raxiim ilaahu dhalinyarada soo ifbaxay hamigooda allah u yeelo ilaahu adduunka dadkii lagu soo hoobto soomaalida waxay noqon doontaa xudunta adduunkay noqon doontaa biidni illahi alkariim intaad u socotaa soomaaliya intaad ka timid soomaaliya inay ka dhacdo oo wiilashan soomaaliya in laisku dagaalo war nin soomaali ma aragteen waxaan ka cabsaa gabdhaha caalamka dhanaaga waxoogaa wiilasha yaa oo kuween wax la-aasku gabdhaheeni nimanka soomaali ah waynaba wiilasha ay nagu yaraadaan waab nagu yaraadeen wiilish haddaab la bagiya maskiin wallahi marka asxaabteed farxadaas yaraa igu soo zaa-iday haddadaan dhowaan fiirsanay waa naga badiyeen laakiin micna ma laha weli niideen waa dhisantahay annaga macnaa zimbabwe fiiri dad oo dowladooda taagan waay oo dhisan waay oo wiilashood la xareynayo oo cuntadooda iyo caafimaadka balooniga iyo waxna loola socdo waay laakiin aniga intee anaga subaxii ilmaha markay soo baxayan waxaa dhammaan qarax maa kugu dhacay ma dhimane adoo nool maa guriga ku noqone haddana saas ay tahay libaaxnimadiisa isku socdaa maasha allah geeska africa inay soomaali tahay mar horaa la sheegay alxamdulilah rabbilcaalamiin intaana inka badan ilaahay qofuur raxiinaan ka sugeynaa walaalayaal isgacmo qabsada isweheshada iswalaashada wax yar aanoo haray wax yar ilaahay maalintii aan maalin kheyr qabto allah ka dhigo insha allah biidnillahi alkariim soomaaliya toosoo markii la qaado wallahi korka waxaan ku dhahay bismillahi raxmaan mala sheegi karaba yaa waa kaase haddaa ka hesheen farxadda aad ilfarxi doontiin insha allah subscribe share and like waa dhinaciina idinkana maxaad dareemi doontaan fiirsada kanaalkaas gala anigaba saas oo kale aan fiirsaday waxaani dareemi idinkana inaad dareentiin waa laga yaabi doonaa insha allah biidnillahi alkariim subscribe and share like ahlan wasahlan asalaamu calaykum waraxmatullah